warmaalin weyn baa dambayso dadku uu moogan yahay quraanka haddaad sidaa u akhridana lacalla bayj ay ka maqantay inaanu jirin laba bayj oo kastoo iska soo horjeeda wax qiyaamaha ka saabsan waa ku jiraan ilaahayna siduu inoogu warramay cid inoogu warranto kale ma jirto ilaahay wuxuu inooga warramayaa intaa in laynooga digo maalinta tan inana maalintaa in dhagali baynu ka taaganay waxaynu rabnaa inaynan maqal oo arag waxaynu rabnaa inaynu adduunkan uun ku wareegno iyo inta taalla maxaa xoola la shaqeeyay maxaa tacliin la bartay maxaa dumar la guursaday maxaa caruur la dhalay maxaa intan yare adduunka inaynu ku wareegno waana la hubaa intaad geeriyooto inaad maalintan tegi doonto waa la hubaa nin dadka cibaadaysta ka mid ah waxaa arkay nin dhallinyaro oo qoslaya markaasuu yidhi waryaahe miyaad maqal buu yidhi inay qur-aanka ku jirto wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya miyaad qur-aanka ku arag buu yidhi in ilaahay leeyay mid idinka midi ma jiro ilaa iyo naarta xaggeeda waa loo aroorinaya dee jidka siraad baa ku dul yaalla naarta waa is arkaysaan miyaa laguu sheegay buu yidhi inaad gelayso naartaas meesheeda soo arkaysa waa laguu sheegay inta ka badbaadaysa inaad tahay miyaa laguu sheegay uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jathiya inta badbaadaysa inaad ku jirto adiga ayaa kuu sheegay buu yidhi maxaad la qoslaysaa maynan ogin inta badbaadaysa inaynu ku jirno ilaahay se waa ka baryaynaa subxaana wa tacaala qiyaamo hadduu dhacba ilaahay leeyahy waa maalinuu ka carari doono qofku walaalkii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo tuuqabay iyo carruurtiisa uu ka carari doono waa maalin aanu cidnaba sokeeyo u araga uu carari doono waayo likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih qof walba maantaa tiisa mashquulisay buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala beleda isaga haysataa ku filan cid wax kama kaafii kare isagaaba mashquula aayad kale ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzi waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shaya ina wacda allahi xaq aayad kale ilaahay wuxuu leeyay wattaquu yowman laa tajzi nafsun can nafsin shaya walaa yuqbalu minha shafaacatu walaa yuukhadu minha cadl walahum yunsaruun ilaahay wuxuu leeyay wardadoo war maalin ka dhowrsada ka cabsada maalin aan ku wax dhalay wuxuu dhalay waxba u qaban karin ku la dhalayna ciddii dhashay aanay waxba tari karin war hooya ilaahay yaboohiisu waa dhab baa ilaahay leeyay inuu maalintani imanayso waa dhabe u diyaargarow war ka dhowrsada maalin aan nafina naf waxu ahayn baa rabbi tilmaamaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaaxiba maalintan dhibta taagan waxaa ilaahay ku sifaynayaa gaaladu haddii dhulka ay lahaan lahaayeen oo la yidhaahdo isku furta way isku furan lahaayeen dhibta haysata maanta adduunka xoolaa waa la jeceliyey laakiin maalintaa cadaabka carar walow anna likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadad bihi baa ilaah yidhi naf kasta oo dulmi samaysay hadday leedahay dhulka waxa yaallaba laftadad bihi waa isku furan lahayd baa ilaahay yidhi bale ilaahay wuxuu leeyahay gaalku hadduu dhulkan iyo labanlaabkiiba leeyihi isna waa isku dayi lahay inuu isku furto waaladiina lam yastajiibuu lah low anna lahu maa fi lardi jamiican wamidlahu macah dhulka iyo in kaloo leeg haddii la siiyo laftadow bihi ulaa'ika lahum suu'u lxisaab bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa dhulka muggiyo dahab ma aha dhulka oo qura isagoo dahaba ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaban walow iftadaa bih xataa hadduu haysta baa ilaahay leeyahy dhulka muggiyo dahaba oo yidhaahda intaa ha layga qaado aniga maanta ha layga daayo cidi ka dayn maysa baa ilaahay yidhi ulaa'ika lahum cadaabun aliimun wamaa lahum min naasiriin
واركواسي عذاب كلول بيليا عذاب وحلحوية وحقبة عدو هيليسي عدو قرقارتنا يالا مايا سيدا وقيد بالنبي حلي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري كيالا يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ما أنت قيامة قال كالك نبا إلهي لي سيد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامة قال كالك هنا مركزا وحلقوا إلى هذا ورهدا دولك مقيا ذهبا هيسان لهي ما أنت ما يسكفرا لهي فيقول نعم هابوا إلى هذا واسكفرا لها فيقال له وحلقوا جوابه قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك هران كو ويديه وحنتا كفضد لك دونيدا جوجتي دول مقيو دهبا يسيكمان ورنبا إلهي لي مركا دونيدا جوجتي بس إعابد بانكو ويدي كاسو كفضدنا دول مقيو دهبا كانتو تي فضديد بان لغاواي وحبا عيد ما انت كاد يسير ما يسال لي وحكا فضد باد بحين ويديه حالك قالت إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية dadka intuu u jeclaa xataa hadii la yiraahdo hal cadaabo oo adiga hal lagu sii daayeen oo aqbalayo yawaddu al-mujrimu law yaftadi min cadaabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha wuxuu jecel yahay dambiiluhu baa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala maalinta cadaabkeeda inuu isku furto uu jeclaan lahaa xaaskiisii iyo walaalkii iyo tolkii iyo qabiilkii iyo wuxuu sheeganayo dhan iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado laakiin taasi ma jirta baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qodobka shanaad aynu tilmaamayno ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxaa ka mid ah maalinta dherarkeeda xataa haddaad cadaabka ka badbaado maalintan shiddadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50 kun oo sannadood bay u dhigantaa afku maynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana آيات ساسال وتلمامية آيات كلنا إلهي وحكوت المامية محي 50,000 سنة مفسرين تبربا وحيد هذا مال انت هنوا كنت نكون السندود هدنا كنت كاكون السندود مال مهيدو مال انت يبوا كون سندود مفسرين تبربا صايد هذا أيا كانت مال انت هنوا مال كدير مال مها عادي مال كماكم سندوده ويا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يبا إلهي لي إيقو حيوار كيان إني دودهي إيقو حيوار كيان محي إني فقتهي أنقنا وحنوارقنا با إلهي لي مالتن إني دودي قيامه ومالين دو با إلهي لي لكن بني آدم كنت دمرك آخر الله وشكاية وحسرها وقت هذا يستا قيامه بريها المجره وردك قيامها كو دعيا مالتي نفتك بحضه dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su'aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay ku bilaabmayaan maalinta naftu ka baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba maalintan dherarkeeda oo cadceedu soo dhowday oo dadku dhididayaan oo qof waliba dambigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meel u joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro yani maalinta tani waa maalin hayru caadiya cadceedu way dhowday markaa dadkoo dhammi way dhididayaan laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembik dembigaagu intuu leegaa kolba meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay oo iyana dee waa jahannamo kaloo lagugu soo dhoweeyey oo cadceedda ka kulul ayaa iyana 70,000 malak iyagoo jiidayaan bay keeneen jahannamina waa joogtaa baqa waa jira dabeetana
dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii ilaahay wuxuu leeyahy wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacatan min nahaar maalinta lasoo xaadiriyo waxaad moodaabaa ilaahay leeyay dunidii inaanay joogin saacatan min nahaar mooyaane wax kale saacad maalina haddii lagu yidhaha war dunidii intaad joogtay kaannahum yowma yarawnahaa lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaabaa ilaahay leeyahy adduunkii dhammaay ay ku soo noolaayeen in yaroo barqaagali raabogali dambe wax yaroo ka mida inuu yahay rabbi wuxuu leeyahy naxnu aclamu bima yaquuluun id yaquulu amhaluhum طariiqa in labistum ilaa yowma ka ugu taqdiirka fiican leh ayaa wuxuu odhanaya war malaa dunidaynu ka nimi maalin waa dhammayd